waxaa sidoo kale xaruntan ka howlgala shirkado iibiya xubnaha jirka bini'aadamka iyo suuqgeynta carruurta aadka u yar waxayna adeegsadaan badanaa dad Soomaaliyeed oo u soo qafaala carruurta yar. tani waa gabar lagu qabtay iyadoo xadaysa wiil aad u yara waxay sheegtay in hawshani gabar ku xirtay waxay intaa ku dartay in qafaalida ilmaha yar ay u qaabilsan tahay shirkad ka howlgasha Xalane. ما هي أنا وش غيان يسوي طيب ما هسيك عظم يا طيب يا أخي أي كوس على سلام ما قصان يا waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in falalka amni darro ee magaalada Muqdisho ka dhaca qayb libaax leh ka geystaan sirdoona dalal shisheeye oo xaruntani degan waana goob laga hago siyaasadda dalka iyo hagardaamooyinka lugaha looga qabanayo horumarka iyo horusocodka dalkeena. ugu dambeyntii bal aan wax yar idinkaga taariikheeyo Maxamed Cabdulle Xalane oo ahaa qofkii xaruntaasi loogu magac daray. Maxamed Cabdulle Xalane wuxuu ahaa nin askari alifla ah oo ay maxaaradu ku dishay dagaalkii Togwa Jaale ee dhacay sanadkii 1964. Xalane wuxuu ka mid ahaa koox ay cadowga is hor fadhiyeen oo go'doon noqday kaliya 3 askari oo isagu ka mid yahay ayaa halkaa ku haray. meesha kooxdaasi cadowga joogtay oo ay go'doonka ku noqdeen waxay ahayd halkii calanka Soomaaliyeed oo ku mudnaa. haddaba markii la baabi'iyay oo ay ogaadeen inaysan meesha hayn karin ilaa ay colkoodii weyna ku durkaan ayuu Xalane wuxuu diiday calankii inuu meesha kaga tago. markaasi ayuu qaatay calankii oo xarigiisii soo degsaday si uu la tago uusan gacan cadow ugu dhicin calankaasi sharafta leh. nigar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro Maxamed Cabdulle Xalane waxa arkay cadowgii waxayna ku dhufteen qoriga loo yaqaano beebaha kadib wuxuu soo gurgurtaba naftii waxay kaga baxday kadib markii calankii ku soo riday gudkii labaad. ya salaam geesi Soomaaliyeed. dhulkii loo soo maray dhibaatadaasi waa nasiib darro in maanta gacan shisheeye ku jiro oo xitaa carabtii maanta fargelin inagu hayso. Xalane wuxuu ahaa 21 jir markii uu dalkani u shahiiday. bal ka warama 21 jirka Soomaaliga ee waqtigani nool waxay dhalinteena ku mashquuleen badankood drugs iyo kooxibal baabadisay waxaynu ilownay waajibkii dalkan in naga saarnaa. gunaanadkii waxaan idinka codsanayaa inaad qaybisaan barnaamijkan waliba si gaar ah waxaan rabaa inay fariinteeda u gaarto dhalinta Soomaaliyeed sababtoo ah waa iyaga kuwa dalkani difaac ka sugayo oo waa iyaga kuwa laga sugayo in dalkani ka xoreeyaan cadowgani ku soo duulay. waa saaxiibkeen Cabdirsaaq Gumeysi diidooda dalka danteen la wada jirkiyo